في نمدي عاوة أيا وحى قرح وفليس هذا الشيء روح السومي دامي وحى وكذا عي مقاحل لقوم عابد فينه أو لقوا يبيو جلات هذا إسلام كان كتلا وضد أداء إيربور كمجال مقدشو كتيم هذا إسقوسك كيلومتر 4 مجال مقدشو قرح حسي أيا وحى الشيء إن وجستي قصاري سوق جل المشي الدواء ترى المشي ده أيا لقوا شيء إلا تدور هل كان داوعنا وأنت سي كبدين يا أول الشيء إن وجاري إلا تدور afyeenka maamulka gobolka Banaadir warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka goobta qarax uu ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ilaa 7 ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen ilaa 2 ruux inkastoo afyeenku uu intaas ku soo koobay qasaaraha ayaa haddana waxaa jira warar laga helayo saraakiisha caafimaadka gaar ahaan saraakiisha gaadiidka gurmadka degdega kuwaasi oo sheegaya in qasaaraha dhinaca dhaawaca uu gaarayo ilaa 10 ruux afyeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta waxa uu faahfaahin ka siiyay qaraxa goobta uu ka dhacay iyo waliba saameyntii uu ku yeeshay goobta qarax uu ka dhacay Allah u naxariisto inta ku dhimatay qaraxan caawa kooxaha argagixisada al-shabaab ee ku weerareen dad dhalinyaro ahaa oo ku fiidsanayay maqaayad halkan ku taala oo ay ku jalaateynayeen kuna shaaheynayeen ruux naftii halaga ah ayaa isku qarxiyay afaafka hore ee maqaayadda inta hadda la xaqiijiyay waxa ku geeriyoodan ilaa 7 dhalinyaro oo runtii ahaa dhalinyaro wax bartay magaaladan dadkii wax u taraayay u shaqeynaya shacabkan kamid ahaa dhalinyaro wax galna ahaa Allah u naxariisto waxaana ku dhaawacmay ilaa 2 qofood runtii kooxaha argagixisada mudooyinkii u dambeeyay waxa ay beegsanayeen waa shacabka waa dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaad ka arki kartaan goobtan hadda oo aan ahayn goob dawladeed oo aan ahayn goob kale oo siyaasadeed laakiin ay ku fiidsanayeen dhalinyarada goob maqaayadna ahayd marka shacabka Soomaaliyeed mar walba waxaan ku boogaadinaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka kooxahan argagixisada oo beegsanaya shacabka oo aan u naxaynin dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinkeena ka oysiinaya habeenii maalin caruurteena agooma ka dhigaya marka Allah u naxariisto inta caawa ku geeriyootay musiibadan halkan ka dhacday inta dhaawacantana waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo sidoo kale waxa la sheegay in goobta ay ku sugnaayeen dad ajaanib ah inkastoo afyeenka maamulka gobolka Banaadir uu beeniyay warkaasi isla markaana uu tilmaamay in goobta ay ku sugnaayeen dhalinyaro halkaasi ku caweynaysay sida uu sheegay maqaayadda waxa ku sugnaa waxay ahaayeen dhalinyaro afaafka hore mashabiyeediga waliba dadkii fadhiyay oo meesha ku shaaheynaya ay ahaayeen marka waa dhalinyaro la yaqaan magaaladan laga yaqaan dhalinyaradii oo isboortiga dhalinyaradii waxgalku ahaa magaaladan ay ahaayeen marka Allah u naxariisto ruuxaas naftii haligaha ayaa isku qarxiyay mudooyinka u dambeeyayna runtii kooxaha argagixisada markii ay laga awood roonaaday waxay isticmaalayeen wuxuu ahaa in qof ay soo miidaamiyo oo yimaado goob ay shacab ku sugan yihiin hadii aan la suuqyadii maqaayadihii ee halkaas isku qarxiyaan caawana marka wuxuu ahaa meeshan maqaayadan oo jalaatada ay dhalinyarada ku cunaan afkiisa hore ayay markaas isku qarxiyeen taas ayaana sababtay intaas oo dhalinyaro inay ku geeriyoodaan qaraxani ayaa waxa uu kamid yahay qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaasi oo qasaare kala duwan u geysta dadka markaasi ku sugan goobaha qaraxyadu ay ka dhacaan waxaana qaraxani uu yahay mid ka dhacay goob si aad loo adkeeyo ammaankeeda oo ay adag tahay in dadka iyo gaadiidkuwa ay u gudbaan Zikriya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho bangiga caalamiga ah ee IBS Bank waxa uu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxa ka mid ah inaad kala socon karto haraaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha beelasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii lamid ah waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaalumo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaad si sahlan kaga dalban kartaa checkbook IBS isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku hallan karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS